السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو من maanta waxaan ka hadlaynaa dalalka ugu nolosha jaban adduunka annagoo soo qaadan doona markaa 5 dal oo kamid ah markaa dalalka ugu nolosha jaban adduunka. dalka koowaad ee ugu nolosha jaban adduunka waa dalka India weeyaan oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan adduunka, dadka toddobaad ee ugu masaaxad ama ballaaran adduunka. dalkaas waxaa ka jira kala duwanaansho aad la yaab u leh diimo kala duwan oo kamid ah Buddhistaha, Hinduismka, Islaamka oo qarnigii koowaad soo galay. kala duwanaansho aad u la yaab leh oo qofkii dalka booqda uu aad la yaabayo wax cusub ku noqonaya ayaa dalkaas ka jira. طبعا saan sheegnay islaamku wuxuu soo galay qarnigii koowaad buu soo galay dalkan, saameyn weyn buu ku yeeshay. haddaad aragtid dhismooyinka sida Taj Mahal waad ka arkaysaa saameynta. cuntada dalka India waad ka arkaysaa saameynta ay cuntada Carabta iyo cuntada Iran ama Persia ay ku leedahay. tusaale ahaan biryaniga ama bariiska hilibka ama digaaga laga sameeyo magaalada Hyderabad. Englishku ama luqadda Englishku waa luqadda rasmiga ee dalka, luqado kale waa lagu hadlaa. waxa weeyaan haddii aan isku barbardhigno tusaale ahaan magaalada Stockholm iyo magaalada Hyderabad ee ku taala dalka India, waxaad arkaysaa in Hyderabad 73% ay ka jaban tahay magaalada Stockholm. dalka labaad ee ugu jaban adduunka waa dalka Pakistan oo isagu markaa ka go'ay dalka India oo meelo kala duwan oo badan marka laga reebo diinta ay iska mid ka yihiin sida cuntada, dhaqanka, dadka. dalka kala duwanaansho aad u badan baa ka jira. waxaa ku taala buurta K2 oo dhinaca waqooyiga ku taala oo ah markaa buurta labaad ee adduunka ugu dheer. haddaan aragno tusaale ahaan magaalada Karachi 67% ayay ka jaban tahay magaalada Stockholm. dalka saddexaad ee isagu ugu jaban adduunka waa dalka Ukraine, inkastoo dalkaas sanadihii ugu dambeeyay ay ka jirtay qalalaasa siyaasadeed iyo dhibaatooyin dhaqaale kala duwan. hase yeeshee waa dal aad u qurux badan ku yaala markaa bariga Yurub. noloshiisu aad ay u jaban tahay, gaar ahaan waxbarashadu aad ay ugu jaban tahay dalkaas. haddaan aragno magaalada Kiev waxay ka jaban tahay magaalada Stockholm 67%. taasoo micnaheeda ah wixii aad ku iibsan lahayd Stockholm iyadoo markaa 67% ka jaban ayaad ku iibsanaysaa magaalada Kiev tusaale ahaan. dalka afraad ee ugu jaban adduunka waa dalka Tunisia oo ku yaala waqooyiga Africa oo markaa dal Carab ah oo Muslim ah. Tunisia sidoo kale sida Ukraine oo kale waxaa ka jirtay dhibaatooyin qalalaasa siyaasadeed baa ka jirtay sanadii ugu dambeysay. waxaad moodaysaa inuu kasoo kabanayo. dhul aad u qurux badan, xeebo qurux badan oo dalxiis aad loogu tagi jiray, Yurub looga tagi jiray. jasiirooyin aad u qurux badan sida jasiiradda Jirba oo kale oo weli ilaa hadda dad Yuhuuda ay ku nool yihiin. magaalada Tunis haddaan aragno waxaan arkaynaa in 64% ay ka jaban tahay markaa magaalada Stockholm. dalka ugu dambeeya ee markaa aan ka hadlayno ee ugu jaban adduunka waa Colombia weeyaan oo ku yaala waqooyiga Mareykanka ama Latin America. waana dhulka waxaa la yiraahdaa kafeega iyo kokaayinka. kafe aad u badan baa lagu beeraa. kokaayinna dalku waxa weeyaan ama daroogadan kokaayinka ayaa aad markaa loogu tahriibiya ama la geeyaa dalalka ay ka mid yihiin Mareykanka iyo meelo kale adduunka. dhul aad u qurux badan weeyaan. sidoo kale kala duwanaansho aad u la yaab leh baa jira oo dhinaca cimilada, dhinaca dadka, meelaha ka soo jeedan qaar baa Spanish-a, qaar baa dadkii Indianski ahaa meesha deganaa marka hore loogu yimi, iyo sidoo kale dad madow baa meesha degan. marka kala duwanaansho aad u qurux badan baa meesha ka jirta. sidoo kale dee waxaa ka jira dal ka soo baxay weeyaan qalalaaso oo daroogada aad ay ugu faaftay oo dawladdu aad ay dagaalanka daroogada markaa juhdi badan u gelisay, taasoo keentay markaa dhibaatooyin kala duwan oo aad u badan oo amni. hase yeeshee dalku waa saan sheegnay waa dal aad u qurux badan oo noloshiisuna ay jaban tahay. tusaale ahaan caasimadda Bogota 58% ayay ka jaban tahay, nolosheedu ka jaban tahay magaalada Stockholm. aad baad mahadsantihiin. إن شاء الله وحنكون بدورنا فيديو كلا.